Hi guys, assalaamu calaykum. Waaniga Cabdifataax Ibraahima. Xaggan nagala socotaana waxa weeye Somaltech. Maanta waxaan ka hadli doonaa cashar ku saabsan mawduucyadeenii extra lessonska ama maxay ahayd mawduucyada aan dhextaalka uga dhigno markaan casharada sameynayno. Maanta waxaan ka hadli doonaa cashar muhiim ah oo ku saabsan laba cashar. Mid sidaad u ogaan karaysid faylasha kaa qarsoon maxay ahayd loo yaqaano hidden fileska sidaad soo saari karaysid ama folderska iyo maxay ahayd casharka kale oo loo yaqaano qaabka maxay ahayd aad u soo inaysid extensionskaaga aad u ogaanaysid. Okay, casharka koobaad ama xalay mawduuca koobaad waxaad ogaanaynaa ama aynu xaggan ka soo saari doonaa folder bay soo furaynaa. Folderka xaggaas aad ka arkaysid maxay ahayd filekaas wax extension uu leeyahay ma jirto. macnaha tusaale ahaan oo kale hadda extension ma leh, waa cusub oo kaliya taa ku qoran. marka faylkan inuu yahay png sawirada waxa loo yaqaanaa png ama jpeg oo kale marka noocu yahay sidee baad ka ogaan karaysaa haddii aanu lahayn aad u soo saari karaysaa ayaa loo yaqaanaa extensionka uu faylku leeyahay. saa u soo saarto waxaad tegi doontaa view. markaad view tagto xaggan waxaad ku arkaysaa inay ku qoran tahay maxay ahayday file name extension. Okay, file name extensionka tigta ayaad saaraysaa. markii hore tig muu lahayn, iminka maxaa kugu qormay hadda saad arkaysid wuxuu kuu noqday faylkaagii cusub .png. macnaha waxaa kuu raacay faylkii extensionkiisa oo noqonaya png. macnaha sawirkaas waa png macnaheedu weeye. marka haddii uu kaa qarsoon yahay waxaad kasoo saaraysaa view. kadib view markaad tagto xaggaa tigtaad saari doontaa ay ku qoran tahay ay tigtiimka inoo saaran tahay ayaad ku qori doontaa. Okay, marka casharka koowaad qaabkaasuu noqonaya waa qaab yar fudud aad u soo saari kartid faylasha. marka waxay kaa caawinaysaa markaad doonaysid fayl inaad bedesho oo kale extensionkiisa aad bedesho ama maxay ahayd aad doonaysid inaad extension kale ku bedesho ayaad hadhow aad arki waayeysaa ama extensionkii oo ku jira ayaad extension kale ku daraysaa kadibna faylka wuxuu noqonaya corrupted. Okay, marka waa qaabka ugu fudud aad u soo saari karayso. Okay, waxaan eegi doonaa isla casharka labaad. macnaha waxaa leeyahay mawduuca labaad oo noqonaya waxa loo yaqaano maxay ahayd hidden fileska. isla waxaad soo furaysaa view. markaad soo furto waxaad tegi doontaa shayga hadda aan soo qaadanay ka hooseeya oo maxay ahayd ku qoran tahay hidden itemska. Okay, hidden itemska ayaad tigta saaraysaa haddii aanay tigta kuu saarnayn. Okay, uu kuu soo saarayaa wixii hidden files haddii ay ku jiraan tusaale ahaan oo kale. haddaad doonaysid inaad hidden ka dhigtid waxaad tigta ka qaadaysaa halka ay ku qoran tahay maxay ahayd hidden itemska ayuunbaa tigta ka qaadaysaa. Okay, waxaan aragnay fileska sida loo soo saarayo markaynu joogno maxay hidden files and folderska. haddaba qaabkee u soo saaraysaa folderka haddii uu maxay ahayd uu yahay hidden. waxaad tegi doontaa file explorer ka soo furi doontaa kadibna waxaad tegi doontaa halkay ku qoran tahay this pc. Okay, this pc markaad tagto waxaad tegi doontaa file markaad tagto waxaad tegi doontaa halkay ku qoran tahay change folderska. Okay, markaad tagto xaggaas waxaad tegi doontaa halkay ku qoran tahay view. Okay, view markaad tagto hoos waxaad tegi doontaa xaggay ku qoran tahay don't show hidden files and folderska. tigta waad ka qaadi doontaa waxaad dooran doontaa kaga hooseeya oo noqonaya itus wixii qarsoon. Okay, apply baad dooranaysaa kadibna waxaad oranaysaa okay dhammaan way kusoo baxayaan folderskii iyo maxay ahayd folderskii kaa qarsooma. Okay, casharkeena markaa intaas baynu ugu eegayay. intaynu ku kulmayna midkan kala mid ah saas nabadgelyo. marka casharka dad ka hesho si asxaabtada la wadaag sidoo kalena kusoo biir channelka waad mahadsantiin.